meelan mayba beero duleedka magaalada Tanxudur ee caasimadda gobolka Boqol mayba markii saddexaad kalama kacaleeyay ayaa amaluday iyadoo waana toddobaadii ka dambeeyay beero duleedka magaalada Xudur iyo guud ahaan deegaanada gobolka Boqolba isaameyn eedan weyn ka weeldaday ayaa amaluday ka geeka mayba u saweeray ludayka duleedka beero magaalada Xudur meelaasi oo xilligaasay tiimku dareeri wasaaradda beero iyo waraabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligaasay meel ku wadeen buufin kaasi oo ay hagiyo ka dilayeen soon dadka deegaanka yamayba iyo sheegahayna intii ludayka sanadkan dhibaatooyin injeysadii walow iyo beero iyo eedanka beerayeen madamed maalan mayba isku duwa wasaaradda beero iyo waraabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yamayba geekan iyo weeliyay beero duleedka magaalada Xudur oo kormeerka kasaani oo xilligaasay luday eedan fara badan ka degsanayay iyadoo waanu madamed maalan usii tiim yeeyba si eedan ku shaqeeyeen sidii on kaaji lahayn ludaykan buufinta ayaa kureeda yamay baxaytay tooluku ku noogsanay walow qalabka la isticmaalay hay qalab eedan yar waana wasaaradda beero iyo waraabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isku duwa isku codsaday anti si degdeg ah handeerta dadkan baahida eedan qabaan ano isku duwa wasaaradda beero gobolka Boqol may xaq u jeediyay geeka inta ku jeeyay ma ku sheegay amba tali tusaale kulleeyankii ilaa roob kale oo qusayto ilaa roob yaa ku jibaabe oo may hadagay geeka ilaa roob shooge beeragi oo Xudur sooniyay beero Xudur sooniyay wal badan aan sheegay wal badan aan la sheegay ayaa ilaa 25 kilomitir isku weer yaa timaanta geeka oo jamaacada ayaa ka degan marka bahalkan wal badan la sheegay haddii yaamagun oo sunto haddii wasaaradda beero 20 hab oo aatow nin sheegay qaab haddii geerad kuma howlgalni walka buufi way kula daali geeka arago haytan wala haddii geeka inta yaalo beero geeka dhatiyo ka degan lan walba kii awlaadkii dugsiyo hay kii ilaa roob maalin mas iskool hay lan walba lanki beerlaha kii in la hayna beledku waxa ku tabi geeka beero la dharoog wal taaglin halaw oo wal hogobada corona ma ilaahay leey wal hogobada corona gudoomiye ku-geenka arrimo bulshada gobolka Boqol mudane Yaxye Macalin Maxamed iyo Suuna Dhanijay si eedan ku warbi ay haga amaludayka toddobaadii ka dambeeyay dhibaatada sanjeysadii beeraleyda degmada Xudur iyo guud ahaan gobolka Boqol Suuna dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in koray madaxweyne Abdaasiis Laftagareen iyo hay'ado samafalka ka shaqo leh soo codsaday anti si degdeg ah lahandeer dadkan dhibaatada weyn ka habsatay markii saddexaad haweerari luday amba ayaa qof si ingorado ayaa soo markii koodii markii la maadan hayna markii saddexaad beerogeena mayla raayus iyo deegaankiina waxyeello fara badan injeysadahay waxyeelladaas oo mayla raayus runtii dad adduunyada taawadaas sidaan ogdi intii dalagun mayla raayatan in roog habahi markii saddexaadu Boqol guud ahaan gaar ahaan degmada Tanxudur agaarsha beero ka yaala haweeraro walow haato markiin ka dornaaytay geeko adu qiyaastii 40 kilomitir oo isku weere degmada Tanxudur agaarsha us haweeraysa baan haweerri iyo degmada Tanxudur hordhaanba ka jartii go'doonkaas oo mayla raayus dhinaga maciishadiyo iyo mayla raayus badeecada shaldun oo ku kooyaan wadadan mayla raayus beledweynayan ku kooyay horaan bacdo hiri ya hatana mayla raayus wali dadka fiirsadaan shileedii hayti inay walaan beero ka roogo ilaahay walan ku biya waliyo xayawaatan mayla raayad oo gilama tolo daayada la qabsaday taasay runtii nasiibadan hooba mayla raayus kooyta ilaahay la nagade walaal ku ka baxay buu absad ilaahay in ilaahay la tu ilaahay diintiisa mayla raayus la akhriisada iyo arintaasay runtii eediyadan ku cunna mayba ka baaqana dawlad goboleedka Koonfur Galbeed an koorey madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdaasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo xukuumaddiisa gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'ado qusayta mayla raayus beero iyo
masiibooyinka madis soo qasay oo kala dhiyaan hay'ado quseeya hay'adda wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed waa markii saddexaad oo beero magaalada tan xudur ee caasimadda gobolka Boqol iyo kalama kaclay ludaykan iyadoo waana dadka deegaanka iyo hayan haano in badan iyo ka tirsan beero walow jidateedii walaan ku galeen kurinyin tanna qiibin un kuwata una qabateen oo korti magaalada Abdi Ibrahim TV-ga raadiyaha koonfur galbeed magaalada xudur ee caasimadda gobolka Boqol.